بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan meel kastoo aad joogtaan si toos ah ayaan u eegayaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee soo kordhay iyo xaaladda guud caawa sida ay tahay Iran waxa ay qaaday mid ka mid ah weeraradoodii ugu xoogganaa tan iyo bishii Abriil sanadkan in ka badan 250 gantaal ayaa lagu warramayaa in lagu weeraray magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah raadiyaha ciidamada Israa'iil wuxuu leeyahay gantaaladu waa 250 gantaal wadarta guud ee gantaalada Iran ay soo tuurtay caawa sidaas oo kale janaalka 13aad oo Israa'iil laga leeyahay wuxuu leeyahay 400 oo gantaal ayaa ka yimid dhinaca iyo Iran barnaamijkii kan ka horeeyay sidaan idinku sheegay Mareykanka wuxuu Israa'iil la wadaagay xogta ku saabsan in Iran saacado gudahood ay ku weerari doonto gudaha Israa'iil iyo deegaanada xoog ay ku haysato sida oo kale waxaa jira macluumaadka ku saabsan in Iran gantaalada ay isticmaashay ay u badan yihiin gantaala plastiga kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah iyo magaalooyin kale arinta cajiib kale waxay tahay marka warbixinada soo baxay waxay sheegayaan gantaalada ay Iran isticmaashay inay gabi ahaanba ka duwan yihiin kuwii hore oo bishii Abriil la isticmaalay gantaaladan waa nooca plastiga ah oo 12 daqiiqo ay ku qaadanayso inay Israa'iil ama ay soo gaaraan deegaanada gacanta ay ku hayso telefishinka Iran ee dawladda leedahayna waxa uu yiri kuwaasi ama gantaaladii 250 ka gaaraya waa wajiga koowaad ee howlgalka lagu bartilmaameedsaday gudaha Israa'iil wajiyo kale ayay sheekadu yeelan doontaa in ka yar marka 20 daqiiqo ayaa howlgalkan laga fuliyay gudaha Israa'iil oo dawladda Iran ay maanta oo talaado ah ay kaga yaabsatay ama caawaba ay kaga yaabsatay Israa'iiliyiinta inkastoo xogtu ay u muuqato in hore loo sii ogaa tusaale ahaan hadallada ka soo baxaya aqalka cad ee dalka Mareykanka iyo xubnaha sirdoon ee Israa'iil ayaa u dhigan in xogtan la sii hayay sababtu maxay tahay saacado ka hor ayaaba sheekada dhan banaanka la keenay oo ah inay Iran weerar fulin doonto laakiin 4 saac ugu dambeeyay waliba laakiin wixii ka horeeyay marnaba lama hadal haynin macluumaadka ku saabsan Iran iyo weerarada ay geysanayso taas oo ka dhigan xog in la helay xogtaas oo dhinaca sirdoonka ah Iran iyo qorshaheeda mas'uuliyiin dawladda Iran ka tirsan waxay leeyahay anaga 80 gantaal oo kaliya ayaan tuurnay warbaahintana oo Israa'iilna waxay leedahay 250 ayay gaarayeen qaarkoodna waxay leeyihiin ilaa iyo 400 oo gantaal ayay gaarayeen sida wax u dhaceen markaad eegto muuqaalada la soo duubay waxay u badan yihiin gantaaladii oo ilays badan bixinaya gantaalo kale ay ka hortagayaan oo kuwa Israa'iilna waxay leedahay 99% gantaaladan waan ka hortagnay waana iska difaacnay marka seeriga digniinta ayaa caawa laga maqlayay qaybo badan oo Tel Aviv iyo guud ahaan Israa'iil ah oo guud ahaan Israa'iil heegan ayaa la geliyay ama alerta ayaa laga daaray wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil waxa uu yiri hadda xaaladdu way degan tahay malaayiin qof ayaa dhulka hoostiisa galay iyagoo ka baqanaya gantaalada ka imaanaya dhinaca Iran saacado ka hor waxaa jira kulan degdeg ah oo Netanyahu uu la yeeshay saraakiisha ciidanka oo arrintan iyo sidii looga jawaabi lahaa laga wada arrinsanayay marka laga yimaado marka gantaalada Iran ay ku weerartay caawa Tel Aviv waxay u badan tahay inay kaga jawaabayeen Ismaaciil Haniya dilkii loo geystay iyo Xasan Nasrallah oo Ismaaciil Haniya waxa lagu dilay magaalada Tehran 31 bishii July Xasan Nasrallahna waxa la dilay jimcihii la soo dhaafay ilaa iyo iminka marka wax qasaare ah lama soo warin oo xogto dhanka qasaaraha marka laga eego aad bay u yar tahay marka dhinaca kale la eegana saraakiisha ciidanka ilaalada kacaanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in xarumo military iyo goobo dhanka amniga ah ay bartilmaameedsadeen macluumaadyo ku saabsan arrintaasina ay ogaan doonaan sidoo kalena waxay shaaciyeen inay xogta ku saabsan qasaaraha guud ee howlgalkoodii caawa ay dib ka sheegi doonaan oo warbaahinta ay la wadaagi doonaan tanina waa mawjadii weerar ee ugu horeysay oo dhinaca Iran ka timaada dhammaan hawada Israa'iil ayaa la xiray duulimaadyadii rayidka gabi ahaanba waa la joojiyay qaraxyo kala duwan ayaa laga maqlay agagaarka xitaa dhinaca iyo Jordan sidoo kale diyaaradaha Iran ayaa lagu warramaya inay qayb ka ahaayeen weerarka waliba kuwa daroonaysa inkastoo dhammaan xogta sida ay sheegayso gantaalo
ay u badan yihiin. marka laga yimaado weerarkan waxa ka horeeya weerar kale oo 2 ruux ay geysteen. labada ruux oo sida la sheegay weerarkani ka fuliyey deegaanka Yava lagu magacaabo iyo deegaano kale oo kamid ah deegaanada Israa'iiliyiinta xooga ay ku haystaan. labada ruux weerarkooda marka 8 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, ilaa 10 ruux ayaa dhaawacyo ay soo gaareen oo 6 kamid ah xaaladoodu aad ayay u liidataa sida wararku ay sheegayaan. arrimahaas idin marka laga yimaado mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana ay yiraahdeen wixii hadda ka dambeeya dadkii difaacyada ku jira, yacni dhulka hoostiisa ku jira way soo bixi karayaan, hawsha waa caadi, wax walbaana way dhimaadeen oo dadka dhufaysyada way ka soo bixi karaan. waxaa warbaahinta la hadlay sidoo kale mas-uuliyiin dowladda Iiraan ka tirsan oo kuwaasoo xiriir la sameeyey dowladaha carabta, waxayna si cad ugu sheegeen waxa caawa ay geysteen oo ah gantaalada plastiga ah ee Israa'iil lagu weeraray haddii laga jawaabo inay iyagana jawaab kala bixin doonaan. Israa'iilna waxay tiri annaga waan ka jawaabi doonaa gantaalada caawa lagu soo weeraray. marka xaaladdu waxaad moodaa inay ka sii darayso guud ahaan bariga dhexe marka laga hadlayo. dowladda Iiraanna waxa ay ka dhabaysay inay ka jawaabayso dilkii Ismaaciil Haniya loo geystay. ma jiro xogo kale, sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda Iiraan ilaa iminka wax war ah ma aanay soo saarin, bal aan fiiriyo dhanka iyo warbaahinta dowladda Iiraan macluumaadka ay qorayaan waqti xaadirkan. Antonio Guterres ayaa waxa uu yiri goordhow inuu aad uga walacsan yahay bariga dhexe iyo waxyaabaha ka soo kordhay. wuxuu taagan yahay waxaan cambaaraynayaa in dagaalka uu sii ballaarto. marka la eego hanjabaadaha Israa'iil iyo Iiraan ee ah haddii aad soo jawaabtid mar kale aan ka jawaabi doonaa iyo macluumaadka ku saabsanna waxay ka dhigan tahay dagaal in la isla aaday haddii xaaladda aanan la qaboojin saacadaha soo socda. gantaallo aad u badan ayaa lagu warramayaa dhulka Israa'iil ee xoogga ku haysato inay ku dhaceen, inkastoo macluumaad aanan laga haynin. Israa'iil mar walba way saadaalinaysay in duqeynta ka imaan karaysa dhinaca iyo Iiraan inay ka duwanaan doonto midii hore, sababtoo ah Iiraan gantaallo waqti dheer soo soconaya ma aanay isticmaalin waqti xaadirkan. markan waxay isticmaashay gantaallo plastiga oo si dhaqso ah kusoo gaari karaya deegaanada Israa'iil. in ka badan 12 daqiiqo ilaa 13 daqiiqo ayayna u baahan yihiin gantaaladaasi si ay usoo gaaraan deegaanada Israa'iil. nidaam difaaciyeedka haddii uusan hore u diyaarsanayn mararka qaarkii way ku adkaanaysaa in la diyaariyo inta gantaaladaas ay hawada ku soo jiraan. Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka iyo madaxweyne Joe Biden waxaa la yiri xaaladda hadda socota ee soo korodhay waxay si toos ah kaga daawanayaan qolka madaxda loogu talagalay inay la socdaan wax walba oo howlgal ah marka la sameynayo. sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda Jordan waxay xaqiijiyeen in boqolaal gantaale ah oo dhinaca Iiraan ka yimid inay dul mareen oo dhinaca Israa'iil ay ku dhaceen. waxaa soo baxaya hawadii Ciraaq in gabi ahaanba la xiray. wadamo badan oo bariga dhexe ah ayaa hadda hawadoodii la xiray. tareenadii goobihii laga dukaamaysanayay iyo dhaqdhaqaaqii guud ahaan Israa'iil waa la joojiyay waqti xaadirkan. sidoo kalena Iiraan hanjabaado ayay weli jeedinaysaa, waxay leedahay inta soo socoto ayaa ka badan. wararka ugu dambeeya haddii aan eegno hadda waxaa lagu warramaya kulamo degdeg ah inay u fariisteen madaxda Israa'iil ee golaha amniga. sidoo kale shir aanan caadi ahayn waxaa goordhow isugu yimid mas-uuliyiin kala duwan oo dhinaca iyo dowladda Iiraan ah. iyagana waxaa lagu warramayaa inay ka shirayaan jawaabta dhinaca ka imaan karaysa Israa'iil. nidaam difaaciyeedyada ayaa la arkayaa kuwaas oo burburinaya gantaalo aad u tiro badan. waa muuqaalada ugu badan ee caawa sida weyn loogu falanqeynayo dhinaca iyo barta Twitterka maadaama xaaladan ay soo korodhay. sidoo kale waxaa la arkayaa qaar ka mid ah gantaaladan oo ka baxsaday nidaam difaaciyeedka kuna dhacaya deegaano badan oo gudaha Israa'iil ah, inkastoo nidaam difaaciyeedkan sida la sheego uu ku fashilmay ka hortagidda gantaalo badan oo dhinaca Xisbullah ka imaanayay. dadka ku sugan magaalada Qudus ayaa si toos ah u duubaya qaar ka mid ah gantaalada oo ku dhacaya gudaha Israa'iil, halka qaarkoodna ay duubayeen iyaga oo gantaaladan ay ka hortagayaan nidaam difaaciyeedka. wararka qaar ee soo baxay waxay sheegayaan inay Iiraan goobaha ay caawa bartilmaameysatay ay ka mid yihiin xaruntii kaydka shidaalka ee magaalada Caskalaan. Iiraan waxay leedahay waan burburinay. digniinta la soo saarayna waxaa ka mid ah in Israa'iil ay arrintan ka jawaabto. warbaahinada kale haddii aan fiiriyo wargeyska New York Times waxa uu leeyahay
xaaladdu way ka sii daraysaa. israa'iilna waxay doonaysaa inay duqayso xarumaha nucleerka ee dowladda iiraan lagu farsameeyo. washington waxay leedahay waxaan ka baqanaynaa inay sheekada isbedesho, dagaalkuna uu noqdo mid ka weyn midka hadda ka soconaya bariga dhexe. wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha allah.